الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبيه الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الأخيار وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. ولا ليال waxaynu ku dhex jirnaa bishii Shacbaan. nabad Allah inagu gaarsiiyo Ramadaan 3 usbuuc meelahaas ka hadhay. maxayna la gudban bishan Shacbaan inta aynu ku dhex jirno. arrimaha ku saabsan sharciga dhexdiisa mashruuca ku ah ee sharcigeenu inoo jideeyay iyo waxyaabaha la diiday iyo waxyaabaha taariikhda bishan ay leedahay ayaynu dhowr arrimood ka soo qaadan doonaa insha Allah. bishan waxa kamida waxyaabaha dhaxdhacay xagga taariikhda islaamka tahwiilul qibla. Shacbaan baa qiblada laga soo jeediyay dadka muslimiinta ah Qudus bay u tukanayeen markay Madiina tageen dhowr iyo 10 bilood. bishan Shacbaan baa laga soo jeediyay sanadii labaad. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام إلى آخر الآية. رسولك صلى الله عليه وسلم ومد بوحة لفري إن قدس كسوتش السدانة كعبة قابلة وانا سيدو النبي تعالى عليه الصلاة والسلام. بشهر شعبان ما دام رمضان يسور له هاي سندي لبعض هجرة ayaa ilaahay wuxuu farad ka dhigay soomka bisha Ramadaan iyo sakaat fidriga labadaba. taariikhdeeda waxa kamida markuu nabigu degay calayhi salaatu wasalaam Madiina, masjidkiisu dhisay, guriyii baa la dhisay xaasaskiisa iyo guriyii ummadda kaleba dadkii ku cusbaa. laakiin gurigii aakhire ugu horeeyay ee baqiic lagu bilaabay sanadan Shacbaan buu ahaa. asxaabigii la oran jiray Uthman ibn Mad'un xabaalahan aynu siyaarana baqiic bishaas la bilaabay. asxaabigaasana lagu bilaabay Uthman ibn Mad'un. taariikhdeeda waxa kamida wax badan baa ku xidhan. Hussein ibn Ali inakii nabigu awooga u ahaa bishan u dhashay sanadii shanaada hijrada fi nafs al-aam. sanadkan labaada hijrada sanadka shanaada hijrada waxa dhacay dagaalkii la oran jiray ghazwatu bani al-Mustaliq. taariikhaha toddobada ah ilaa markaynu ka soo gudubno arrimaha sunnaha bishan dhexdiisa waxa kamida fi hada ash-shahr inaynu soomno soom sunna ah. waxana inoogu daliila axaadiitha rasuulka ka sugan sallallahu alayhi wa sallam. waayo wixii diin ah يا وحي عبادة رسولك إنه كقضى ينينا هل كاسانا أجري يا أبالك وينه كشرة صوم كان صنها هنا واك إسبير كوا أما كبا يفرل كمال أنت قيامة مركوين قدين مر. عائشة الله كرها لنقض النبي قال هذا الشو وحيتري يسجى كور أنت وحيتري لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان. مرك الله قرر يبر رمضان بلها بش أوجس صوم بدنا waxay bisha Shacbaan la yiraahdo. qaba laga yaabo qofku inuu raamay bisha waa yar tamaraysanaya xoogaa tamara anu siiyasha Ramadaan dhinaca kale uu nabiguna ka eegay calayhi salaatu wasalaam. riwaayadka qaarkood waxay tilmaamayaan fa innahu kaana yasuumu Shacbaan kullah. xadiidka saxiixaynka Shacbaan dhamaantii baa wada soomay. xadiidka labaad isaguna xasanka Usaama ibn Zayd baa warinaya. nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu la hadlay waxa uu kumaan arag adigoo soomka badiya sida Shacbaan u badiso. bilaha kale uma badisid soomka sunnaha sida bishan Shacbaan u badiso maxaa jira? sirta iyo xikmadu nabigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam. kadibna waxa uu wa huwa shahrun dhalika shahrun yaghfulu an-nasu anhu bayna rajab wa ramadan. arinta waraysa waxa weey dadka ayaa ka yara dhacaa camalkiisa iyo soomkiisa oo bishan kamida bilaha xurmada leh Rajab aynu soo dhaafnay
way ku dadaalaan cibaadadeeda ramadaanna way ku dadaalaan labadaas u dhaxeeya dad badan baan soominba marka aanu taasan ka faa'iideynayaa buu iyo arinta labaad oo ah turfacu fiihi al-a'maalu ila rabbil aalamiin ilaahay xaqiisa amalada malaa'iktu ay u gudbiyaan amalka adoomaha iyo warbixintiisa fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana saa'im waxaan jecelahay amalkayga in ilaahay loo gudbiyo anoo sooman labada xigmadood buu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam idan halkaa waxaynu ka fahamnay xigmadihiisa labadaa uu nabigu inoo sheegay iyo inuu yahay tawdi'atan liramadaan wa tadriiban lilcamali fiiha qofkii baa usii rabaayad qaadanaya ramadaano naftii buu sii adbinayaa soomka sii ogolaysiinaya waxa kale aynu ka fahmaynaa waqti kasta oo cibaadada dadku ay ka mashquulsan yihiin qofka ku dadaalaa inuu ajri weyn leeyahay bishan waxaa sunnaa in la soomo sawmu sarari ayaamaha dhexe ee ayaamaha cadcad cimraan ibnu xuseyn buu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waa xadiidkii bukhaari iyo muslim ku jire hal sumta min surari hada ashahri bishan miyaad soontay dhexdeedii ayaamii iftiimayey markaa asxaabigu waxau uhi maya rasuulku wuxuu ugu jawaabay fa idaa afdarta ay min ramadaan fasum yowmayni marka haddaba ramadaan ay dhammaato 2 maalmood soo soon oo halkii u gelaya waa arrinta labaad ee aynu qabanayno arrinta saddexaad waxa weeye sunnaha ah inaan la soomin maalmaha u dambeeya bishan soomaad kula dadaalayso cishada ama labada u dambeeya waa iska ilaalinaynaa nabigaana diiday calayhi salaatu wasalaam xadiidkii bukhaari laa yataqadamanna axadukum ramadaana bisawmi yowmin aw yowmayni ilaa an yakuuna rajulu kaana yasuumu sawmahu falyasum dalika sawm ramadaan maalin ha kala horu marina ama 2 cisho idinkoo doonaya inaa sugtaan bisha ramadaan oo ku dadaashaan cibaadadeeda oo ilaalinayo oo isleh yay waxba idin dhaafin sawmu yowmi shaki baa loo yaqaanaa fi lfiqh alislaami laakiin qofku hadduu caado u soo taxnayd lahaa wuu ku sii xidhiidhin karaa maalinkaa u dambeeya oo dee keligii kumuu gooni yeeli soomka waxaa afraadoo bishan dhexdeeda sunno ah qadaa'u ramadaana fii shacbaan dadka qaarkood baa dumarkii ha u badnaadeena lagu lahaa soom qalla ah oo ramadaantii hore ah fursaddii markaa way soo gaabato way soo ururaysa maadaama ramadaantii kale ay soo dhowaatay marka ehelka ubadka ooriyaha iyo ummaddaba in lagu baraarujiyo maxaa qalla lagu lahaa ku dadaalo soom qofkii kari karaya saxiixaynka waxaa ku sugan min xadiidi caaishata qaalat kaana yakuunu calaya asawmu min ramadaan famaa astatiicu an asuumahu ilaa fii shacbaan mararka qaarkood baa soom la igu yeelan jiray dee leeda qalla ah maan haleeli kari jirin ilaa inaan soo gaadho shacbaan mooyaane sida nebiga oo hawlihiisa u wado ee aan ugu dadaalayo ugu khidmaynayo marka shacbaan la soo gaadhaadaan ka gaadhsiin jiray soomka culimadu waxay leeyihin xadiidkana waxaa laga qaadanayaa soomka dadejintiisa soomka qallaha ah inaanu waajib ahayn waayo caaisho ilaa wakhtigaa may soo gaadheen waa se sunna in la dadejiyaa waxaa sunnaha ducada weliba habeenka kala badha bisha shacbaan leylatu nasfi min shacbaan maxaa ku soo aroray daliil u khaasa xadiid tirmidi uu warinayo min xadiidi caaisha xasana nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam ina allaha caza wajalla yanzilu leylata nisfi min shacbaan ila asamaa'i dunya fayakfiru lijamiici khalqih ila almushrika waalmushaaxin habeenkaa bisha shacbaan ay kala barhka tahay ilaahay baa samada soke u soo degaya waa soo degitaan isaga u gaaroonka makhluuqa la mid ahayn wuxuu u dhaafayaa khalqigiisa oo dhan buu u dembi dhaafayaa qofka gaalkaa uma dhaafayo qofka mushaaxinkaana uma dhaafayo mushaaxinku waxa weeye qofka naxli iyo nacaybsiyo walaalkii ugu jiro ciil iyo cadho badan qaba ciil qabe oo cuqdad badan dadka u haya bal arrintaa khatarteeda eeg qofkii gaalka ahaabaa liiskiisii la raaciyey gaalkii looma dembi dhaafayo kii walaalkii u cadhaysnaa ciilka u qabayna looma dhaafayo inteeba innaga ciil iyo cadho ka madhanba
iyo cadaawadu walaalkii u hayo ilaa man casamahu allah cid ilaahay uu ilaaliye mooye waa cudur inagu badan inkastoo fursaddaasi ay jirto habeen walba saxiixa waxaa ku sugan inuu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay habeen walba yanzilu ila samaa'i dunya fii thuluthi leyli alakhiir fii thuluthi leyli alaakhir habeen walba ilaahay samadasa kuu soo degaa marka 3 meelood oo meele ay ka hadha habeenka waqtigaas salaatuleylka loo kaco 4 saacadood ee dambe ilaahay wuxuu leeyahay hal min mustaghfirin fa aghfira lah ma jiraa mid dembi dhaaf weydiisanayo anigu aanu dhaaf hal min daacin fa astajiiba lah hal min saa'ilin fa uctiyah ilaa an yadluca alfajr yaa waxi baryaya ee aan siiyaa ilaahay baa subxaanahu wa tacaala taasuu addoommaha u yaboohayaa ciddii fursaddaa ka faa'iidaysataa horumar weyn iyo aqbal iyo ijaabay u dhowday shanta arrimood waa waxyaabaha inala gudban bishan shacbaan la yidhaahdo 5 arrimood oo laga digay baynu markaa raacin lahayn oo waxna waa mashruuc iyo ma'muur diinta dhexdeeda wax layna faray waxna waa manhiyaat wax laynoo diiday cibaadada marka qofka taqiga ee alla ka cabsadaa waa qofka ku dadaala wixii la faray sunna iyo faralba waa qofka iska ilaaliya wixii loo diiday xaaraan iyo karaahiyada وهناك بدع في هذا الشهر بشان يدا شعبان لا يرادا بدعوين شربا جرا وحكم إذا بدعة الشيعة وهبين كان يستقى دادو فرصته وحضرك دونتا الشيعة كوحدا منحرف كمسلم كشيكتا يقول مالها كقيل قيلنا يورنا يا سيارة دي حسين إن كي نبي السيارة دي سيبانو دقينا مالها يسقوي مادا يا مساجد ولا يستانا واوين حديثه waxay ku sheegaan oo mawduucaada bay u dajiyeen oo asal lahayn oo kamid yahay man lam yastati' ziyarat al-Husayn falyazur ghayrahu min al-a'imma fa in lam yatamakkan aw ma'a ilayhim bisalam qofka kari waaya Husayn inuu soo booqdo yaalka uu ku aasan yahay a'imada kalaha soo booqda a'imada u jeedaan waa ayatullayaashooda kii kari waayana xagooda salaanta haw ishaaro xadiis bay uga dhigayaan dadka waxay dadka ku caaminayaan way mowduuc loo yaqaanay alifteen waxa labaad oo bidcaha ay soo kordhiyeen salaat al-alfiyya fi hadhihi al-layla waxaynu uga digaynaa dadka qaar kood baba laga yaabaa iska masaakiin inay ku daydaan ay yiraahdaan waa diinuna ku dadaal maxay dhimaysa bidcada qaar baa dadka shaydaanku ugu dhigaa oo soo diinun maaha way iska wanaagsantahay iska samee iska sameedaasa lagu qabsanaya lagu ciqaabaya waxa labaad oo bidcooda kamida salaada u bixiyeen salaatul alfiyya salaada kullayda wa 100 rag'a fiha fi kulli rag'atin 10 يقرأ فيها 10 مرات سورة الإخلاص بقول ركعات والركعات والبلغوا آخرية 10 قول هو الله 10 لقول لفتين بقول ده وكن صلاة الألفية بيو بحية ولي وين جمع لقوت كذا بين هذا وحين أرجنا صادوا في رسندون تاع عاشوراء يو ليلة النصف من شعبان أبينك كلا برا شعبان ويكون يعني عيدها حتى عيدها مسلم كلها عيد الفطر يعيد الأضحى واحد صدحابة فرقوين كقلاعة قاركود إلى يماد كشيغان إنه هبينكاسي وياهي هبينك قرآن كلا كشيغي إلى هول إنا أنزلناه في ليلة مباركة هبين بركة يسمى القرآن كسودة تشيني ما بها هبين هذين هبينك ليلة القدر جاء وهبينك كلا برا بيش شعبان ولا بين تاس وده القرآن كيسجع يفسر إيه إلهي بقى وحس القرآن كين لسودة تشيء رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن marka quraanka ramadaan la soo dajiyay ee la sheegay habeenkan la soo dajiyay habeenka ramadaan ku jiray u dhigantaa taasina daliilkaas ka hor imanaysa waxa afraad oo bidcooyinka kamida takhsiisu leylati bil qiyaam wal nahaari bis siyam li hadith la asla lahu indahum waxay yiraahdeen habeenka waa in lagu gooni yeelaa qiyaam iyo cibaado aad u badan oo habeenka la tukanayo maalintiina la soomo waxay u soo qaateen
erayo ay dejiyeen xadiid ku sheegeen oo yidhaahdeen idaa kaanat leylatu nisfi min shacbaan faquumuu leylaha wa suumuu nahaaraha habeenkaa marka gaadhaan maalintiina sooma habeenkiina cibaado isu taaga bidaca waxaa ka mid a salaad loo yaqaano salaatu raqaa'i mararka qaarkood wakhtiganay tukadaan mararka qaarkoodna waa ka duwaan imaamu nawowi raximahullah markuu ka warramaya waxa uu lahaa salaatu raqaa'ib wa salaatu shacbaana bidcataani munkarataani qabiixataani labadaas salaadood ee midna shacbaan la tukado midna la yidhaha salaada jacaylka iyo raqbadda iyo abateedka waa laba bidco oo aada u xun oo fogfog buu lahaa iyaduna 6 ragcadood bay ku sheegaan arrimahaasina shanta ana bishan dhexdeeda waa wax mudan in lagu baraarugsanaado oo qofku aanu kaga dayanin dadka samaynaya markaynu furaska ama jaaniska ka faa'iideysano inagoo jeebka khayr ku sii ridanay ama ka buuxsanay una diyaar garowna insha Allah ta'ala ayaynu gaari ramadaan kadibna khayrkii weynaabaynu halkaa ka sii wadi doona Allah ina waafajiyo اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تستجاب يا أرحم الراحمين اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة